بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي ومهله inuu kulmiyey kulankan khayrka badan aynu ku kala wareegayno aynu ku kala wareegayno waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mas-uuliyiinta joogta dhammaantood wasiirada xildhibaanada agaasimayaasha xisbiyada dumarka shacabka guud. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh. mahadnaq kadib halkan in badan baa laga hadlay. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa maayarkeennii hore ee caasimadda cabdiraxmaan maxamuud caydiid iyo ku-xigeenkiisii cabdicasiis iyo dhammaan xildhibaanadii hore ee 25 ahaa. aad iyo aad baan u salaamayaa, waanu sii sagootaynaa, waanu u mahadnaqaynaa. khibraddii aqoontii hore ay lahaayeenna waanu ka qaadanaynaa. 17-kayaga xildhibaan maayarkayaga cabdikariin axmed mooge uu nagu hogaaminayo waxaa noo dejisan qorshe cad oo lagu maamuli doono caasimadda iyo degmada Hargeysaba. waxaanu wada shaqayn toosan la leenahay dowladda, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha kale ee kala duwan. haddii alla idmo waxaanu la iman doonaa qorshe cad kaasoo ah maamul daadejin, kor u qaadidda rajada shacabkiina soo doortay. wax badan bay naga filayaan. ilaahay idinku waxaan rajaynaynaa shacabkaasi waxay naga filayaan iyo rajaday nagu qabaanba inaanu rumayn doono haddii alla yidhaa. kolley kelmadda inteeda muhiimkaa waxaa odhan doonaa maayarka. isa meelaha muhiimka aynu doonayna inaynu saxno waxaa ka mid ah maamulka iyo hoggaanka. maamulkii hore wax fiican bay soo qabteen, hoggaamin fiican bay sameeyeen. haddii alla yidhaa halkaasaanu ka sii qaadi doonaa. maamul iyo nidaam fiican baan la iman doonaa. shacabkaygana soo doortana waxaanu la yeelan doonaa xiriir toosa haddii alla yidhaa. oo haddaad la soo doorateen ood xilin loo dhiibteen noqon mayna insha allah biidnaahi kariim qaar aada weydaan. waxaanu si toosa idinla xidhiiri doonaa. waxaanu joogtayn doonaa shaqada iyo hawsha aad noo dirateen. magaaladeenna Hargeysi waxay u baahan tahay in kor loo qaado dhaqaalaha. waxaanu samayn doonaa insha allah biidnaahi kariim tax reform. cashuuraha kor baanu u qaadi doonaa. shacabkaygana soo doortay waxaanu ka codsanaynaa inay cashuurta bixiyaan. haddii aynu doonayno inaynu halkaa aynu joogno keliya aynu qurxino waxay u baahan tahay dhaqaale. sidaa daraaddeed filitaanka faraha badan ee aad filaysaan waxay ku xidhan tahay dhaqaalahaad bixisaan. magaalada Hargeysa waa la qurxin, waynu hagaajin insha allah biidnaahi kariim. ammaanadaad noo dhibataanna waanu xafidi doonaa haddii alla yidhaa. sidaa daraaddeed waxaanu idinka codsanaynaa inaad cashuurta si fiican aad u bixisaan. aad iyo aad baad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.